السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله الصوماليات ميل والبو الجوكتان ساعد والبو الجوكتان يزمن والبو الجوكتان با سلام عاد وقيمة بدنا السلامة. لن نقبل ولن نقبل never accept لن نقبل حيث وعاز ولم يعياري هذا النوع عاس حوي لن نقبل ولن نقبل قد أحمر معناه لانجويج تريننج ما كنت جبتها لغة برشا ما كنت جبتها هذه طلبات ود ما نقول بعضي إسبيديس مدن وجه تذكر أيسن أركين أنا أركين عندنا هذا أركين سجلين أو الله هذا الدولة تكون تيتالا وريا إلهي يقال بالدولة هذه كتاب هدي ولالك ملب أوي هاي هالمر لما الله يفتاليني هدي مدحوينها فدرالك مدني محمد عبد الله أوي هاي نين قيمة بدن حشمت بدن ضدك احترامه رقم في عن ثقل دن هو استعمالنا ماشي الدولة أنا قاعد جرتو دولة الجيل السنة وما ركت حال كذا إلى وحاس بجرات ماشي الدولة أنا قاعد جرتو والله دولة أنا قاعد جرتو النظام له الشرع له كس عطاء وحال له ده لن نقبل ولن نقبل عربي نقول بريس أنا محيين وها برك وحيا نفسرنا أنا بركسك لا أفسرنا برك واقو سف أنا أسون قانا مقتاي هذا كان فاهمينا وهذا أقبلين معناها إن عيدمada lacag loogu daro miyaan aqbalaynin lama fahmin warkaan ciidamada Soomaaliya in lacag loogu daro mushaaraadkoodii oo muxuu ahayto la dar yeelo la naqbal waay Soomaa xagaaga in ciidamadii Soomaaliya hadii ay ku roonayaan danab ay maanta joogto la naqbal waay Soomaa in ciidamada Soomaaliya la tayeenayo oo la ixtiraamayo oo madaxweynuhu ku tilmaamayo inay wiilashiisa yihiin la naqbal waay Soomaa in madaxweyne ku xogeenkii bangiga adduunka oo muqdisho imaaday oo intaas soo maaragtay madax ah ilaa heer madaxweyne ilaa iyo beesha caalamka hortooda oo ka qirayay in February lacagta la dhaafayo la naqbal waay Soomaa oo Soomaaliya deynta laga deenayo la naqbal waay in dawladda Mareykanka iyo United Nations ay dawladda Soomaaliya transparency iyo nadaafad iyo wanaag iyo bila corruption ay ku amaanayaan la naqbal waay Soomaa haddii ilaahay ku rooyaa in bishii sideedaad wara magaalada soo maaragtay jadwalka dawladda ku jiro ah in maaragtay shidaalkii iyo laga hadlaayo iyo la naqbal waayo Soomaa in awoodii dawladda dhinac walba ay naqatay ay soo xoogaysanayso dawladnimadii Soomaaliya in maaragtay duruufihii dawlad xumada ah laga baxaayo in dawladda aamini kara ee soo baxday in maaragtay Xasan Cali Khayre oo 6 saac maalmeed intuu soo baxay ra'iisul wasaare حسن علي خيره oo soo istaagay nimankii dhowr sano ka hor European Union ka ahaayeen ee Soomaaliya deeqay wax siin jireen ballamadii iyo hortooda ka qaaday ee hadalladii uu ku lahaa inuu soo xasuusiyo oo yiraahdo 2 sano ka hor sidaas ay tiraahdeen anna sidaasaan idin dhahay sidii aan dhahay bayna naqatay waa kana dalku waa horumaray 2 sano ka hor mushaar ma bixin kartaana ilaahadeen haddana waxaan idin leeyahay waagin waa idin dhahay haddana waxaan idin leeyahay mushaarna waa bixinay deynna laguma laha 2 sano 3 sano ka hor waxaad igu lahaydeen ciidan tayada ma keeni kartaan haddana waa keenay oo ciidankeena tayada lahaa waa noo joogaan dhowr sano ka hor waxaad dawladda Soomaaliya iyo xukuumaddeeda aad ku dhahayseen haddii ilaahay ku roon yahay jawi siyaasadeed oo la aamini karo ma keeni kartaan waa kana waa keenay macnaha waxa la naqbaltaa waa waxyaabahaas positive-ka ah حسد لما ربوا دلكاga حاسد ku noqonin markii aan u soo noqono hadalka muxuu ahaa ciidamada habeen la qoraayo anigu waxaan arki jiray markii aan weynaaday oo macnaha aan wax fahmay waxaan arki jiray dad riga maaragtay ciidan lagu qoraayo oo riga macnaha wuxuu la jeedaa fayl lagu qoraayo inta la feeriyo ninba ninkuu ka dheer yahay ninba ninkuu ka xoog badan yahay ninba ninkuu askarinimo ka mudan yahay ayaa la qaadan jiray waa runtaa waa la qaadan jiray laakiin taas la qaadan jiray hore dhaaf adiga maxaa ku qaadan jirtaa askarta ninba ninkuu ka dheer yahay ma ku qaadan jirtay taariikhda Soomaaliya waxaa tahay ninka ugu horeeyay
ninkii ugu horreeyey ee nimaan alif garabkiisa la saarin jenaraal saaray baa tahay taariikhda soomaaliya waxaa tahay ninkii bixiyey sarreeye guuto iyo sarreeye gaas hal mar bixiyaa tahay taariikhda soomaaliya waxaa tahay nimaanan isbatooro loo xirin ninkii gaashaanle sare ka dhigaa tahay taariikhda soomaaliya waxaa tahay ninkii darajada soomaaliya macnaheeda dhan beeliyey haddeertaan dawladdu waxay keentay siyaasad fiican oo ah in dadkaas darajada la siiyey ee lagu khaldamay ee la dhibaateeyey oo darajada bacdoon xaq u lahayn haddii lagu siiyey waa lagu dhibaateeyey ee la dhibaateeyey ee jannanada ah ee jidka boorka indhaha uga jiraan in warkooda inta la iska dhaafo jannanimadii iska hada la yidhaahdo dawladdii ay soo saartay 2 xidiglayaal 3 xidiglayaal korneyl ugu badan yahay saldhigyadii oo dhanna loo wada dhiibay ciidamadii qalabka sidoo dhanna ay dhallinyaro quality leh oo bannaanka wax ku soo wada bartay oo dalka gudihiisa wax ku wada bartay in loo wada dhiibay oo loo wada dhiibaayo taasay uga jawaabtay maxaa yeelay madaxda maanta joogta ma qaadi karaan wixii aad soo qaadeen oo kale ma qaadi karaan maxaa yeelay wixii wax sharciya waxaa la rabaa shaqaynayaa la rabaa oo haddii ilaahay kuu roon yahay dadkii anfacayaa la rabaa oo dalkii anfacayaa la rabaa oo quality leh laakiin ciidanaa la qorooyaa ciidan habeen la qoraayo oo nabadsugudu qoraya waxaas yaa kuu dirsadaadi yaa kuu xil saaraadi dalkaanu taladiisa meel bay ka go'daa meeshiina waa joogaa ninkii dalka taladiisa ka go'day dalkaanu ra'iisul wasaaruhu leeyahay ballaminkii oo iska daayay soomaalidii ka qaadee kuwii meesha caalamka oo ka qaaday sida ay tahay bixarfin waaxid u soo fuliyey dalkaanu dariiq fiican oo toosan oo haystaa dalkaanu waa isku toosay dalkaanu dadkiisii waa walaaloobeen dalkaanu dad ahaanu u soo noqonayaa dal ahaanu u soo noqonayaa dhinac walba dal ka soo noqonaayo oo haddii ilaahay ku roon yahay dad quality leh wasaarado aad u wanaagsan wasiirro aad u wanaagsan oo shaqadooda yaqaanaan taliyayaal ciidan oo shaqadooda yaqaanaan haddii ilaahay ku roon yahay madax shaqadeeda taqaano ayaa dalka ka shaqaynayso adiga inaad wax aqbashay inaadan aqbalin yaa ku weydiinaa horta micid baa adiga wax kaa weydiinayay yaa kuu tala saarta kumeelgaaraad madax ka aad kumeelgaarkan sidaa awgeedaa u gashay naag balaaye allah ku rido waa naga habaarsatay naag la yidhaha jandaayo faraysraa dhexda nooga kaa soo riday iyadoo cid ku taqaana aysan jirin oo dhiiggii subxaan allah jandaayo faraysraa nugu kaa soo tuurtay ma nin soomaali keentaa tahay dalka waxaa jooga ninkii soomaali ay keentaa joogo dalka waxaa joogo farmaajihii shacabkaa joogo dalka waxaa joogo ninkii aad ogeedeen oo maalintii adiga inta sanka farta lagaa geliyey lagu lahaa buri ninkaan sababtaa u burinaa maxay tahay ma aadan dhihin maxaa la yidhaahdaa wixii degganaa kenya ee ahaa muxuu ahaa hay-adihii qaramada midowday iyo muxuu ahaa dadkii deeqaha soomaaliya ku cuni jiray kenya dalkaas soo galaan markuu dhahay ay intay caroodeen adiga sarka kaa soo galeen ay ku dhaheen eri ra'iisul wasaarahaaga ee aad tidhi shaqada ha ka tago adiga iyo Yoweri Museveni iyo bakti aad tirahdeen shaqada farmaajo ka tag farmaajo maalintaasay shacabku heleen haddaba talan ku siina maalintaasi kaa hoos baxday farmaajo waxay ahayd maalintii adiga aad haysatay haddaa haysan lahayd shariifow oo labada gacmood ku haysan lahayd oo dhihi lahayd anigii ra'iisul wasaarahayga waa isla baxaynaa dhihi lahayd maanta soomaaliya magacaa ku yeelan lahayd maanta soomaaliya qiimaa ku lahaan lahayd maanta soomaaliya qadarin weynaa ku lahaan lahayd maxaa yeelay ra'iisul wasaare fiican oo shaqaynaayo oo qatar ah oo high quality ah oo waddaniya ayaad maaragtay iska dayacday gacantaadaad ku dayacday adaa farahaaga ka bixiyey adiga naftaada eed ha laga soo tago saasay tahay aan ognahay inuu madaxweynuhu adigu xushmad kuu haayey ninaan xushmad lahayn baa xabadka kugu qaatay shirki garowe ma xasuustaa markii dani la caleema saaraayey madaxweynaha sida qiimaha badan oo adiga kuu salaamayey ninkii dhinacaaga taagnaayaa ka xumaay wanaagga adiga iyo madaxweyne farmaajida ka dhexeeyo iyo xushmadda oo ku xushmaynaayo ilaan waa nin qiimo leh qof qiimo leh dadkuu qiimeeyaa qof aan qiimo lahayn dadkuma qiimeeyey mogtahay ninkaan waa nin qiimo leh farmaajo nin qiimo la waaye inuu qiimo leeyahay waxaa ku tuse soo kuu wanaajinaayey oo maaragtay madaxweyne shariif kuu lahay madaxweynehii kuu lahay oo habeenkii la doortay jarjarada kaaga soo degaya hotel jaziira bannaanka kugu imaanayay taariikhda ay loobin horta oo nacsa naqan wixii oo dhan ninaa kaaga ciyaaray kama aadan fiirsanin maxaa ka imaan kara ma dhihin marka hadda inaad maalinba mar intaad soo istaagta never accept ingiriiska hadda adiga
orod meelaha looga hadla tag waddamada oo ingiriishka looga hadla tag si fiican train u soo sameey nabi accept kaaga dhigtaadii subxaan allah ninkaan nin eeda badan waaye madaxweynaha ah nin qiimo badan waaye oo aad nadiif u ah waaye maxaa keenaayo hadalaan maqlahay oo anoo baaraayo dukuminti oo igu jiray daatadeeda baaraayo waxaan arkaya madaxweynaha hadalkiisa asagoon madaxweyne ahayn wuxuu lahaa war xasan sheekh wixii ka hadlaaba anagay naga hadlaabeen war xasan shakhsiyan yaan loo caaynin ninkii caayaa madaxweynihii qarankuu caayay annagaa is caaynay bal fiiri baxbaxsad ma u ahay farmaajo weligiin dad ku dhadhegan waa joogi jirteen dalka idinkoo weliba us iyo bakti iyo ciyaal suqnimo iyo haddii ilaahay ku rayay wax dawlad aan marnaba dawlad lagu sheegi karin idinkoo iska daba wareejinaysiin ayuu jooga madaxweynaha weligiin ma maqasheen madaxweynehu idin haysta ma maqasheen madaxweynehu idinka hadlaaya ma maqasheen war wuxuu dhihi jiray xataa dad kale wuxuu ku dhihi jiray niman yahow haddii nimankan aad la hadlaysaan tala siiya oo hoos ula hadla miidiyaha kala hadlina saxa marka dhibaatada adduunyada ee maanta jirtaa waxay tahay afkaygaa qoyan waaye tan labaad cillad kalena waa jirtaa oo laakiin wax fiican ah dawladdu waa la ignooreyey nimankaan maxaa yeelay qofka aan is-sharfin cidu sharfi mayso marka la arka sidii mooryaan camal inay marba meel isugu tegaayaan marba wax samaynayaan marba ay dawladda dhinac ka soo galayaan marba maalin walba oo dawladda wanaag laga soo sheego faaqay soo leeyihiin waxaad mooddaa inay cadowga soomaaliya yihiin ani magacaan rabay inaan u bixiyo nimankaas magac ayaan rabay inaan u bixiyo oo ah gadaalaan u dhiganaa magacaas gadaalaan u dhiganaa maxaa yeelay wax bini'aadanka ilaahay oo fahmi kara ma aha waa la yaaban yahay war ninka inuu ujeeddo layaa la rabaa inuu meesha u socdo la yaqaanaa la rabaa inuu waxa uu ka hadlaayo la yaqaanaa la rabaa war wax la taliya ma laha aawo odayaashii aaween dalkan magaaladan muqdisho la yidhaahdo dadka deggan odayaasha waa ka baktiyeen oday ma laha waa waxaan oday lahayn oday ma le aawo cuqaashi aaween war waxaa lala hadlo war isku xishooda hala dhaho ha la yidhaahdo dawladdu waxba ka qaadimaysiine idinka ha isceebaynina hana isdhibaataynina ha loo sheego waa iloobayne dalkan ninka madaxda ka ah inuu soomaalida agteeda oo ka yahay wax weyn oo qiimo badan inuu ka yahay u sheega in ra'iisul wasaare carabkiisa iyo calooshiisa iyo maskaxdiisa ay isleedahay oo yaqaana cabirka yaqaana ee dhahaya wallaahi aniga arrintan iyada ah waxaan gaarsiin karaa ilaa meeshaas oo injineer dawladeed ah xukuumaddiisa si injineerina u wado dhahayo intaasoo maalmood intaasoo aan gaari karnaa mool leh shaqadiisu kaliir tahay ee cad tahay dadkan wuxuu sheega tan labayd wariyayaasha jooga xamar joogaan war isku xishooda nimayow saxaafaddaa ka shaqaysaan war markay idin wacaan waxaanoo kale war naga taga dhaha mase idinka hadal lee raadinaysiin war ha ceebeennina nimankaan odayaasha masaakiinta ah wixii kale ogyihiin ma le haw tegina hawaalina markay u tagtaan ay arkaan dhowr mikrofon iyo haddii ilaahay ku ruran yahay idaacadihii tvda meesha taaganoo wax laga duuduubaayo wax balaayo kale isu malaynaayaan ka dhaafa nimayo annaga dalkan haddii ilaahay idinkiisa ku ruran yahay dalkan waa noo toosay diiddayaa ama doorataaba yeeshayaa ama yeelinaaba ma aha soomaaliya meel maanta 2 nin ay celin karta ma joogto meel 3 nin ay celin karta ma joogto meel maanta loo soo jabhadayn kara ma joogto ha soo jabhadeeyaano baryaha ka soo qaata marka intaasaa dhimanay subxaan allah maanta meesha aan joogno waa inaad fahmi kartaan horta maalin walba waa goodinaysaa waa booteen maxaad ku booteynaysaa waxaa ku bootaynoo maanta dawladdii federaalkeeda aad ugu bootaynayso adigoo shakhsiyoo bulxubay gur ka deggan waxaad ku bootaynay maxaa la yidhaah baaris madaxa ah ma u baahan tahay saan caadi maahaye saata caqliyada noocaas maxaa waaye waa qad gaduud wuxuu yidhi qad axmar waaye
لن نقبل ولن نقبل والأقبلات هذه بيحكوا حريين إلهي قادر وايه وقت بدل ما قليلين الوحاس وقت بدل ما يستقلوا من مينه ورحمة ما تعليشها الحمد لله صوماليي ما أنت إلهي أمها النقا مردوا صون قنيسان مردوا دلك الجو شقة بدني هلايان مردوا إن شاء الله بإذن الله الكريم وحن نقنينا وقلبي هذا شيء سيد خليج كيو كلا نقنينا دولتها حروق مري عمرها نقنينا نعمة برواقا قارينا بترول كأني يا الدنيا ذي هدي لا يكونوا عن شورها إني بقى نقبضن دلك الاسم في عنا كوسعده وناك بدن وآد وفر بدنا موقدان هل متكون كدعية هل متكون دعية بس صومالي هداتين هل متكون دعية إلهي وحكبر ذان إلهي وحكبر ذان مويسان فرماجو إلهي ونوكينا بريين إلهي مكاني حتى إلهي وحكبر ذان الله ولا عنن إلهي مكلا وضع إلهي هيسكو كانوا إلهي مسير كأي وضعان إلهي ملفي عنها لقارسي والدعية أنا أق دقن وحكي ترميسو أنا أق ما أنت الصومالي ما لقى سوق بكرة ما جوكتو ما قرتين هلو الدعية ذلك النواه جاجي إذا ما ذي نقوال تبييشن ما أنت صوماليا حدي عاد مسكح الذين إذا ما لقوا تشنكر إلى ذا خارج ومانا الحين صوماليا جيس كأفريقيا دتك أوجو جيس سواي دتك أوجو هذا ذكواي دتك أوجو كتر سواي مال وربا لك شيء كين يدان بلاي اسكسي ديني ساعتين صومالي مغلان أفر لا تنسى إذا ما لسميه أو كمان دوس صومالي إلى ذا رادياشة وتيفياشة ذي كارلان دل كان واقعي دل كان وسوق البناء دل كان واسربا ولا تنمدين اللونتي وصولابتي اللهم لك الحمد والشكر أنت تتمنى ويصون غني وحيالها النكتيف كأه وحيالها والدة دد كان شقدون كأه دد كان رادين أيان جاب كود وح كدعة أما جدين كود وح مرة أما والدة ما نحن تنمدين يكون عليه ما أنت ما أنت وذي معها ما أنت مالين هرمريدا اللي جوجا ما أنت وحال اللي جوجا ما أنت الصومالي وحقصنا لهذا اللي جوجا ما أنت وحال اللي جوجا إن قدال وتورنا نروح دولة معها ما أنت وحال جوجنا إن هيكسنه سيدي دولة هالدرس كنا وكلا إن نقلنا كفاية وإنتاس نقف في الانتباهات يبربلم إنتاس وإن نقف في الأنواع كبدا إلهي نوم كيرو حتى وحي كدم بيو وحد كنت شنينا وحي تاي دولة نمان كنت شنينا حد وحي كدم بيو وحد كنت شنينا هرمانا كنت شنينا حد وحي كدم بيو وحد كنت شنينا عيدا أول لها كنت شنينا حد وحي كدم بيو وحد كنت شنينا دولة بلا قبيلة لها كنت شنينا حد كدب وحد كنت شنينا مدح إنون نحذا نون حريستا دناه هنا كشقيسان هذا كتب على فكرينا هذا وحي كدم بيو نكتيف قدالا مرنينا وح نكتيف هو الدم بالصومالي وركا إذا مسوا كلايان مدة جيسانينو دقيهن وما فرنا نين ميل سو استاجي أفر ميكروفون صو صارتي دن أساق أولياي يو دن جروب أساق إلين أولياي وحاسوا بناكي وبحين ما أنت دن صومالية هذا لقى شقينا دن تا صومالية هذا لقى شقينا يعني كيس اللي دعك كله جو مرع الله توبين كويسة كمان دقي كرتي برواقا هيك سنينا برارا هيك سنينا وناقا هيك سنينا فرحات بدنا نوجدنا خير بدنا نوجدنا اسبيتال لو وين ولا نسي ودك كينيو هجاجي ودك يو هرو مري أفر سنة هذا اللي ما كان ولا معنن وحاركتنا لسميه أفر بقول يو تضربات إنت سو مليون أو دولار وحاس أنا جنو يالله بجت كاس الشيء جايو شغاله الدور الدوا بدنا يا قبل هذا اللي جالسينا وشار بدنا اللي هلا وشقينا دلك بنتجينا أنا جا إسكان وقع عسنينه أنا جا علمه إني هاي تود فرمركود يدلك إنه رمكيس كشقيسانينه بوستيف كفكر ما تروح كده بيه يوصل إذا النية جبنين وحمام ما هيسان أنا جي ويدي وحمام ما هيسان وإحنا ما أودا وحاسك الله يعني إذا ما يكون وحكومة تقال أنا ما هيسان ما كانت يسوسا يسمينها إنه البقرة كانت تسوقت بالحساب أنت أفرح بتكرر دلوقتي ده لو I don't know لكن وحكي لي أودا ما جرته ما أنت الرئيس الوزراء دلك شقينا أيوه شقديسة إلهي سبحانه وتعالى بقى وح إلي كرمله سلوا علي ومتعلو أو إسباروي كدولة لو نيجي ما رتان إلهي بقى مهبلة كن يكوجر أسرع نقينا صومالي يقول صومالي من دمو صومالي عدالة
soomaaliyey horumar soomaaliyey dawlad wanaag soomaaliyey mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad dawladna kulmiso soomaaliyey tiirkii naga jabay oo dib loo dhiso soomaaliyey talada naga hallawdo oo dib loo celiyo soomaaliyey ciidankeenna jajabo dib loo yegleelo soomaaliyey calankeenna leecay oo kor loo taago waxaas waxaan ahayn maanta wixii ka dambeeya ma ku tashanayno waxaas waxaan ahayn maanta wixii ka dambeeya ma dhegaysanayno negative ma dhegaysanayno hadal xunoo baaqbaaq lala yidhi adigaa kugu laabtaan leenahay maanta wixii ka dambeeyo waa maalinteenni waaye maanta waa maalinteenni waaye soomaali maalinteedii waaye maanta maalintii aan rafaadka ku jirnaye dhibaatada ku jirnaye wax noo naxaaya dawladda aysan jirin oo balaayo baaso oo xaaraan ku naaxay ay dalku wada haystay oo wixii oo dhan ay meel cidlaa taagnaayeenoo dalkuna dayacnaa dadkuna dayacayaayeen ma aha maanta dadku ma dayacna dalkuna ma dayacna madax laga baqaa ma joogto madax dadka looga baqaa ma joogto madax haddii ilaahay kuu roon yahay inay soomaaliya ku ciyaartaa ama gadataa looga baqaayaa ma joogto tan ayaan ku midoobaynaa tanaan wada qabsanaynaa tanaan wixii ku soo ordaa beerka haraanta ugu dhufanaynaa tanaan dhinacyada ka wada gelaynaa way noo toosan tahay allah isuuka ay toosii waa ku dhegaynaa labada gacmoodaan ku qabsanaynaa labada gacmood midigtaan kula dhegaynaa gows dambeedkaan ku qabanaynaa garabkoodaan gelaynaa waa u ducaynaynaa haddaan aragno nin xumo maamul goboleed oo faaqfaaq soole idabta ka hadlaysanaan leennahay haddaan aragna siyaasi aan hore u soo aragnay oo maaragtay haddii ilaahay ku ruya xaaladdiisa iyo waxa uu waday iyo markuu hadlaan naqaanaa wuxuu aaminsan yahay waxa uu rabo waxuu ku orkacsanayaan ognahay waxaasoo kale markaa aragtaan yur dhaha ninkii is ixtiraamana ixtiraama ninkii soomaaliya ka xishoon waaye ee soomaali ixtiraam waayana ilaahay ma ixtiraamo mana ixtiraamayno ixtiraam ma laha guul badanaan idiin rajaynaa khayraan idiin rajaynaa qiimo badanaan idiin rajaynaa soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha israacdo soomaaliya ha midowdo cadowgeedu ha dhaco madaxdeenna cimrigoodu ha raago caqligoodu ha bato haddii ilaahay ku ron yahay hawsha ay hayaanna ilaahay subxaanahu wa tacaala ajri xasanaad allah ka siiyo madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaare khayre xukuumadda baarlamaankao dhan ilaahay khayr badan ha idin siiyo qiimo badanaad leedihiin qashinaad naga soo dhex saarteen kor baad noo qaateen dibad iyo gudaba sharafkeennii baad ilaaliseen ra'iisul wasaare khayrow soomaaliya kuma iloobi doonto madaxweyne farmaajow soomaaliya kuma iloobi doonto laakiin weli waa idiin baahannahay baahidu waa badan tahay stiil aad baan idinkugu baahannahay ma hubno mana naqaanno dad noociinnaasaan u helayna annagu ma naqaanno meelaan ka soo heli doono si xaal naqan doono ma naqaanno waxay tegaysaa marka inaan labada gacmood iyo goosdambeedka idinku qabsannay tegaysaa idinkana ha oggolaannina in soomaaliya gacantiina laga bixiyo inay kala daadato waxaana aad dhisteen yaan la bililiqaysanin lacagtaana aad isu aadiseen yaan la bililiqaysanin yaan niman islaameed joobkooda ku dhicin idinku jeebkiinna waa ka nabad galnay jeeb kale yaannaana gelin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.